So a few years ago, I set the goal for Israel of becoming one of the top 5 cybersecurity powers in the world. iyadoo lagu dirayo kaliya hal fariin waxay ka gudbin kartaa dhammaan amniga telefoonkaaga oo rakibi kartaa softwarekan oo si buuxda ula socon kara dhaqdhaqaaqa telefoonkaaga. softwarekan ayaa wuxuu heli karaa fariin kasta oo weligaa lagu soo diri jiray, sidoo kale wuxuu heli karaa fariin kasta oo aad heshay intii aad isticmaalaysay telefoonkaaga. wuxuu kale oo heli karaa sawir kasta, fiideo kasta iyo email kasta. wuxuu shidi karaa mikrofoonkaaga xitaa isagoo aan la isticmaalin ayuu shidi karaa mikrofoonkaaga isagoo duubaya wax walba aad ku hadlayso. wuxuu kale oo shidi karaa kaamaradaada, wuxuuna duubi karaa waxa aad samaynaysid markaad ku jirtid qolkaaga ama meel kale. wuxuu heli karaa GPS-kaaga, wuxuuna ogaan karaa ama kormeeri karaa hadba halka aad ku sugan tahay ama aad joogtid. wuxuuna samayn karaa waxaas oo dhan adigoon ogaanin waxbana ama aan waxba dareemin. systemkan fududaynaya basaasnimadan suuragalna ka dhigaya arrinkan waa programka lagu magacaabo Pegasus. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. kusoo dhawow daawade kanaalka Xanga Show. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir oo kanaalka subscribe saaro. haddii aad muuqaalka ka heshidna like saar. Pegasus malaha waa kan ugu horumarsan programmada wax lagu basaaso ee abid laga hirgeliyay caalamka. ma jiro qaab la isaga ilaalin karo haddii ay damcaan xogtaada. fikrad kasta aad lahayd iyo hawl walba oo muhiima waxaad ku khasban tahay inaad buug iyo qalin ku qoratid. Pegasus waxay u aragtaa aalad say doonto kaa yeeli karta. marka haddii aad u malaynaysid inaad nabad qabtid sababtoo ah waxaad isticmaashaa WhatsApp end-to-end encrypted call ama waxaad isticmaashaa Signal, Facebook, Twitter. runtii micno ma lahan applicationadan mar haddii Pegasus uu ku jiro telefoonkaaga. Pegasus wuxuu dhici karaa labada operating system ee kala ah iOS iyo Android, halka ay jiraan xogo badan oo aan weli lagu ogaan softwarekan oo uu samayn karo. marka mid ka mid ah siyaabadaha Pegasus uu u weerari karo telefoonkaaga waxa loo yaqaanaa u nuglaanta ama waxa lagu magacaabo zero click, waxayna ka macno tahay adigoo linki iyo waxba ku dhufan in la helayo xogtaada si kooban. waxa lagu soo dirayaa fariin oo kaliya, fariinta taaba ama ha taabanin wax la helayaa xogtaada. u nuglaanshaha noocaana weli ma ahan mid ay ogaatay shirkadaha soo saara telefoonada, mana garanayaan meesha laga soo weerarayo mobilada. Pegasus waa wax soo saarka ugu weyn ay hormarisay shirkadda la yiraahdo NSO Group oo ah mid ka mid ah shirkadaha dabagalka iyo indhaynta ee Israa'iil ama Yuhuudda. haddaba dadka isticmaalaya programkan wax basaasa waa macmiil dawladeed. kuwani waa qaar ka mid ah dawladaha adduunka kuwaasoo xirmooyin qaaliya ka iibsada shirkadda NSO Group programkeeda Pegasus. sida aan ka soo xignay Citizen Lab, baaritaan ay samaysay waxay ku ogaatay in ka badan 45 wadan lagu fuliyay loona isticmaalay barnaamijkan. wadamadaas waxaa ka mid ah wadanka Sacuudiga, Imaaraadka, Bahrain, Turkiga, USA, Brazil iyo kuwa kale oo la mid ah. sidoo kale sida ay baaritaan ku ogaatay Citizen Lab waxaa loo dhacay telefoonada qaybo ka mid ah wariyaasha Al Jazeera iyo qaybo ka mid ah shaqaalaha Amnesty International. laga soo bilaabo 2016 in ka badan 50,000 oo qof ayaa lala beegsaday, kuwaasoo ay macaamiisha NSO ay ka lahaayeen dana gaaro, iyadoo ay ka mid yihiin dad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha, garsoorayaasha iyo mucaaradka dawladaha qaar. NSO Group ahna shirkadda iskale softwarekan ayaa beenisay dhammaan eedeymaha loo soo jeediyey, waxayna ku andacoodeen inay u isticmaalaan kaliya inay ku xoojiyaan sharciga, ugana hortagaan dambiilayaasha iyo argixisada, kuna caawiyaan ciidamada militariga iyo hay'adaha sirdoonka, taasoo ah mid ka fog xaqiiqda. dadka lala beegsaday waxaa ka mid ah wariyihii Sacuudiga ee Jamal Khashoggi, kaasoo la dilay lana jarjaray Oktoobar 2018 xilli uu booqanayay qunsulka Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. baaritaankan ayaa tibaaxaya in la helay
brograam wax basaaseed kaasoo lagu install gareeyay telefoonka gabadhii uu doonanayay maalmo ka hor dilkiisii. sidoo kale telefoonka nuwadiisa ayaa lala beegsaday intii u dhaxaysay Sebtembar 2017 ilaa Abriil 2018. NSO ayaa ku jawaabtay in tiknoolajiyadeedu uusan lug ku lahayn dilkaasi bahalnimada ah. xogaha qaar ayaa sheegaya in cidda ugu badan ee loo isticmaalay ay kala yihiin qoysaska boqortooyooyinka 64 madaxda ganacsiyada ah 84 ka mid ah dadka ugu dhaqdhaqaaqa badan xuquuqda aadanaha 600 oo siyaasi ama madax dawladeed 189 wariyaal. softwarekan Pegasus ayaa u muuqda inuu yahay mid khatartiisu aad u sareyso gacantu ku jirana ay tahay mid aan nixin oo faa'iido eeganaysa kaliya dawladda ay hoos tagto oo ah Israa'iil way ka amaanan tahay shaqada ay hayso. waana nidaam maxkamaddu waxba looga qaban karin. Pegasus madaxda ay beegsatay waxaa ka mid ah madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo qaybo ka mid ah wasiirada iyagoo la beegsaday maruu ku sugnaa wadanka Morocco. madaxweynaha Ciraaq ayaa ka mid ah kuwa shabaagta ku ridatay Pegasus iyadoo la rumaysan yahay in telefoonkiisa gacanta loo adeegsaday barnaamijkan. sidoo kale wadamada Carbeed ayaa ah kuwa isku adeegsanaya programkan basaasnimo. madaxweynaha Lubnaan iyo ra'iisul wasaaraha iyo qaybo ka mid ah wasiiradiisa sidoo kale xubno ka mid ah ururka Xisbullah ayaa waxaa beegsaday dawladda Sacuudiga iyo Imaaraadka iyagoo ku beegsanaya softwarekan Pegasus. maxay Israa'iil isugu jaajuusayaan wadamada midba midka kale? maxayse damacsan yihiin? fikirkaaga nala wadaag. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkana subscribe saaro. haddii aadan weli like saarin like saar. mahadsanid.